السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Banaadir Star Media qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo duqeyn ku dishay horjoogayaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo hay'adda NISA oo shaacisay in la soo afjaray shabakad abaabulan oo dadka cabsi gelin jirtay oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo digniintii ugu dambeysay u diray dowladda Itoobiya ee duulaanka ku ah badda Soomaaliya iyadoo laga cabsi qabo dagaal ka dhex qarxa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya lafta gareen iyo qoorqoor oo isku diyaarinaya in ay mar kale ku soo laabtaan hogaanka maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garooba iyagoo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka Banaadir Star Media oo dhameystiran fadlan daawade markasta xusuusno xuska iyo xiriirka alle oo tuko salaada si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinaha joogtada ee Banaadir Star Media fadlan rukumo oo subscribe saaro channelkan mahadsanid aan ku bilaabay dowladda Soomaaliya waxay shaacisay in la dilay horjoogayaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kalena la soo afjaray shabakad abaabulan oo ka tirsan isla kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo dadka ka cabsi gelin jiray baraha bulshada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga waxay howlgal qorsheysan oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen deegaanka Jexjeexa ee gobolka Mudug ay ku dileen horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab howlgalka waxa lagu dilay xubin ajnabi ah oo ka tirsaneyd kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inuu ka soo jeedo dalka Lubnaan kaasi oo Al-Shabaab u qaabilsanaa tashkiilinta dhalinyarada gobolka Mudug iyo sidoo kale gobolka Galgaduud si ay dhalinyaradaasi uga barbar dagaalamaan Al-Shabaab horjoogaha la dilay ayaa la sheegay inuu ahaa xubin sare oo ka tirsan kooxdan isla markaana uu muddo dheer ka caawinaya Al-Shabaab in dhalinyarada lagu qanciyo mabda'a ay kooxdan ku dagaalanto ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga waxay sidoo kale duqeymo kale ka fuliyeen isla gobolka Mudug iyadoo oo la beegsaday fariisimo ay Al-Shabaab lahaayeen waxaana duqeymahan lagaga jawaabayay weerar ay dhawaan Al-Shabaab ku qaadeen talis ay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska ee gorgor ku lahaayeen deegaanka Caad ee gobolka Mudug halkaasi oo Al-Shabaab ay guul ka sheegteen dagaal ka dhacay balse dawladdu sheegtay in shabaabka laftooda lagu jabiyay dagaalkii deegaanka Caad maalmihii la soo dhaafay howlgallo ballaaran oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ayaa ka socday gobolka Mudug waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa maamul goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay isku dayayaan in Al-Shabaab ka sifeeyaan deegaanada Galmudug gaar ahaan koonfurta gobolka Mudug iyo bariga gobolka Galgaduud halkaasi oo ay ka socdaan howlgalladii ugu dambeeyay oo lagu baacsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab dhinaca kale hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa shaaca ka qaaday goordhow inay soo afjartay shabakad abaabulan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dadka ka cabsi gelin jirtay baraha bulshada hay'adda nabad sugidda iyo amniga qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa shaacisay goordhow inay burburisay 20 kooxood oo shacabka ka cabsi gelin jiray baraha bulshada gaar ahaan kuwa internetka bayaanka ka soo baxay NISA waxaa lagu sheegay in xayiraad la saaray dhammaan lambaradii xubnahaasi isticmaalayeen kuwaasi oo gaaraya ilaa 2500 oo lambar ama akoon lagana mamnuucay gebi ahaanba adeegyada ku hadalka OTT sida WhatsApp iyo wixii la mid ah xafiiska amniga internetka ee hay'adda NISA ayaa soo afjaray ku dhawaad 20 koox oo isticmaalayay gruubyo ay lahaayeen qawaariijta kuwaasi oo ay u isticmaali jireen cabsigelinta shacabka Soomaaliyeed iyo in ay dhalinyarada marin habaabiyaan ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay'adda NISA ee fadhigeeda ugu weyn yahay Muqdisho sidoo kale waxay hay'adda NISA shaacisay in shabakadan ay qayb ka ahaayeen kuwa looga shaqeynayay boobka iyo baada ganacsatada Soomaaliyeed maadaama ay abaabushay shabakadan dhowr barood ama gruubyo dadka lagu handadi jiray waxay sheegtay hay'addu in lambarada la xanibay qaarkood laga wici jiray shacabka oo ay ku jiraan ganacsatada iyaga oo kooxaha argagixisadu weydiisan jireen shacbiga inay baad bixiyaan siiba ganacsatada NISA waxay shacabka Soomaaliyeed uga digaysaa inay xubin ka noqdaan group channel ama page ay leeyihiin qawaariijta si aanay u wajihin xayiraad iyo in talaabooyin sharciga waafaqsan laga qaado iyadoo oo la raacayo siyaasadda la dagaalanka argagixisada ee barahaasi iyo sharciga la dagaalanka argagixisada waxaana dadka looga digay inay raacaan ama ay falowgareeyaan ama ay ku biiraan baraha ay Al-Shabaab ku leeyihiin ee bulshada gaar ahaan baraha WhatsApp iyo Telegram hay'addu waxay sheegtay in la beegsan doono bar kasta oo shabaabku ay leeyihiin si looga hortago hagardaamada iyo cabsi gelinta ay kooxdan ku hayso muwaadiniinta Soomaaliyeed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale digniin u diray dowladda Itoobiya xilli laga baqdin qabo dagaal toos oo ka dhex qarxa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ay dowladda Itoobiya si aan gambasho lahayn duulaan ugu soo qaaday qayb ka mid ah badda Soomaaliya isla markaana ay ku xadgudubtay goobannimada iyo qarannimada Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay madasha Talyaaniga iyo Afrika ee Roma ayaa xusay mustaqbalka wanaagsan ee Soomaaliya fursadaha maalgashiga iyo kheyraadka dihin ee ceegaaga dalkeena oo waxtar u leh gobolka iyo guud ahaan caalamka madaxweynaha ayaa tilmaamay in iskaashiga caalamka uu ku tiirsan yahay ixtiraam sharciyada iyo mabaadi'da madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalalka madaxweynaha ayaa sheegay in iskaashiga Afrika iyo Talyaaniga uu noqon karo mid shaqeeya haddii dal Afrikaan ah uu ku xadgudbo xuduudaha dal kale wuxuuna tusaale u soo qaatay isku dayga fashilmay ee faragelinta Itoobiya ku sameysay madax banaanida dalkeena madaxweynaha ayaa tilmaamay in caqabadaha hortaagnaa dowladnimada Soomaaliya iyo dhabar adayga ay ku wajahayaan dadka Soomaaliyeed in ay yihiin kuwo ay dowladdu dadaal ku bixisay si looga gudbi lahaa isagoo sheegay in xoreynta deegaanada ku jira gacanta argagixisada ay barbar socdaan qorshayaal lagu adkeynayo dowladnimada laguna xoojinayo iskaashiga iyo doorka Soomaaliya ee gobolka kuwaasi oo ay ka mid yihiin ku biirista dalada bulshada bariga Afrika qaadista cunaqabataynta hubka iyo dhamaystirka deyn cafinta oo lagu guuleystay haddana lagu howlan yahay dhamaystirka dastuurka Soomaaliya iyo in argagixisada laga cirib tiro deegaanada kooban ee ay dalka kaga sugan yihiin Soomaaliya waxay ku faani kartaa kheyraad alle ku manaystay ee dhinacyada beeraha xoolaha kalluumaysiga tamarta iyo booska istiraatiijiga ah ee ay dhacdo kuwaasi oo ay weheliyaan inay yihiin dad firfircoon dhalinyaro u badan kuna tilmaaman hami iyo hal abuur ku biirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika waxay si weyn u dhiirigelisay aragtida Soomaaliya ee ganacsiga iyo horumarka ganacsi ee guud ahaan gobolka ayuu yiri xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay shirka madasha iskaashiga Talyaaniga iyo dalalka Afrika ee ka dhacaya Roma xasan sheekh wuxuu si cad ugu sheegay dhammaan dalalka ka qaybgalaya shirkan in Soomaaliya aanay u dulqaadan karin xadgudubka Itoobiya ku hayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya iyadoo oo laga duulayo heshiis beenaadkii ku dhexmaray Addis Ababa bilowgii sanadkan madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed sayesha dowladda Soomaaliya ayaa indhaha caalamka ku soo jeedisay Itoobiya balse wali uma muuqato xukuumadda Addis Ababa mid ka waabatay damaceeda guracan waxayna duulaan ku tahay badda Soomaaliya taasi oo mustaqbalka dhow sababi karta in uu dagaal ka dhex qarxo labada dal ugu dambeynna madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa isku diyaarinaya in ay dib ugu soo laabtaan kuraasta ugu sareysa labada dowlad goboleed ee fadhiyadoodu kala yihiin Baydhabo iyo Dhuusamareeb dhawaan ayay ahayd markii Laftagareen iyo Qoorqoor ay si cad uga sheegeen xafladii caleema saarka madaxweynaha dib loo doortay ee maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ee Garowe inay maagan yihiin dhabaha uu Siciid Dani qaaday ee ku soo laabashada kursiga waxayna fariin u direen dadkooda si gaar ah hogaamiyaha Koonfur Galbeed oo dhowr tusaale soo qaatay wuxuu sheegay inuu ka fakarayo sidii uu kursiga ugu soo laaban lahaa isagoo durbadiiba markii uu ku laabtay Baydhabo bilaabay olole ballaaran oo uu isugu diyaarinayo in uu kursiga ku soo laabto si uu maamulka Koonfur Galbeed u sii hogaamiyo Laftagareen oo hadda muddo ku dhow 6 sano hogaaminaya maamulka Koonfur Galbeed muddo kordhin cusubna helay ayaa u muuqday mid damacsan inuu mar labaad kursiga ku soo laabto si uu u hogaamiyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadoo lagu amaanay horumarro uu ka sameeyay dhinaca mashaariicda gudaha magaalada Baydhabo iyo in uu si gaar ah macna ugu yeelay maamulka Koonfur Galbeed inkastoo arrinta amnigu ay weli tahay caqabad hortaagan Koonfur Galbeed oo inta badan dhulka maamulkan ay kooxda Al-Shabaab gacanta ku hayso dhinaciisa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu ka fakarayaa in uu ku soo laabto kursiga madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wuxuu Qoorqoor wali la kulmayaa caqabadaha gudaha iyo siyaasiyiinta damaca leh ee u sharaxan kursiga madaxweynaha Galmudug kuwaas oo laga yaabo in ay doorashada ku garbiyaan Axmed Cabdi Kaariye oo isagu si aan gambasho lahayn ololihiisa doorashada u gudagalay iskuna diyaarinaya in uu markii labaad majaraha u qabto maamul goboleedka Galmudug waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanayseen Banaadir Star Media